Solana ecosystem waqti xaadirkan waxa ay maraysaa meel aan caadi ahayn. Asxaabta Solana sidan ayay dareemayaan. haye daasay hayaan. Binance oo kaliya ayaa isbuucan waxay sare u kacday 1875%. Dogecoin oo iyaduna hoos u soo dhacday. Ku soo dhawaada videogan maanta waxaan isla eegi doonaa fursadaha ka banaan waqti xaadirkan iyo projectyada aan maanta idin wado oo isla eegi doono isla wada analyze gareyn doono. Aad ay ugu mahadsantiin mar labaad soo booqashadiina. Ku soo dhawaada ayaan ku leeyahay hantiyada. Fadlan waxyaalahan kugu wadaagi doono yuusan noqon shayga kaliya ee go'aamiye in aad wax maalgashato. Fadlan raadi xog kugu filan soo u noqdo maalgashi aad adigu go'aansatay oo aysan noqon mid cid kale ay go'aamisay. Sidoo kale waxaa jirta su'aalan weydiiyay oo idinku abaalmarin cidda su'aasha ka jawaabta in aan $50 siin doono oo ku maalgashan karayso meme coin-ka ay jeclaato. Jawaabo aad macquul ah ayaan ku arkay runtii. shayga koowaad maanta isla eegi doona xogweyn odaygii Elon Musk ahaa ayaa aroortii subaxnimo ba wuxuu shaaciyay in Dogecoin ay leedahay mustaqbal aad u fiican. waqti xaadirkan Dogecoin ay hoos soo dhacday. Haddaba waqti xaadirkan waxay hoos u soo dhacsan tahay 48% all time high. Haddaba waxaan tagi doonaa chart oo isla eegi doonaa Dogecoin waqti xaadirkan halka ay marayso. Halka uu Elon Musk uu leeyahay Dogecoin waxay leedahay mustaqbal fiican. Chartiga laakiin waxaan ku arkaynaa in Dogecoin ay hoos soo dhacso. Haddaba waxaynu isku lifaaqayna waxa uu sheegayo iyo waxaanu ka arkaynaa chartiga. waxaan arkaynaa in hoos loo soo dhacay laakiin maxay naga caawinaysaa suuqu inuu sare aado waxaan u baahanahay lacag liquidity. dadkan maxay yihiin seel ku jiri? dadkani waa dadkii lacagta sameynayay, waa dadkii loogu talagalay in lagu dhaqaaqo. marka ay taas dhacdan maxaa dhacaysa? waxaan arkaynaa waxaan dul dhignaa calaamada lacagta dollar sign ka dul dhig doona. halkan waa lacagtii la qaadi lahaa. Dogecoin haddaba maadaama ay hoos soo dhacayso waxa ay fudaydinaysaa hoos u dhacani in uu sare aado maadaama waxaanu haysanaa lacag aynu ku dhaqaaqi karno. haddaba Dogecoin waqti xaadirkan maadaama hoos soo dhacday mustaqbalka waxa suurtagal ah inay gaadho $1 ilaa $4 ayaa la rajaynaya inay gaari doonto. sanadka dhammaadkiisa ilaa $1 inay gaari karto ayaa suurtagal ah Dogecoin ama meme-kani. waxaa jira token adiga soo codsateen oo ah X Empire. X Empire waqti xaadirkan waxa ay taagan tahay $0.002 ay taagan tahay. weli maadaama uusan ahayn token aad u weyn lama soo gelin maxaa la dhahdaa website-yada waaweyn si loogu taxliiliyo ama si loogu eego market cap-kiisa volume ku dhex qulqulaya. waxaa jirta exchange waaweyn weli lama soo gelin. waxaa la soo gelin laakiin exchange-yada sida OKX, Paypit, Gate.io laakiin lama soo gelin mataqaana exchange aad u waaweyn maadaama tokenku uu cusub yahay yar yahayna weli ka hadda. haddaba tokenka waxaa sameeyay YouTuber-ka la dhahdo ama haddana dhahdo YouTube-ka X Empire. wuxuu leeyahay community ayuu leeyahay. waqti xaadirkan mataqaana waxay maraysaa price-ka noocan. ma jeclen project-ga noocan in aan ka hadlo balse waxaan isiri maadaama la soo dalbaday ha noqoto tii ugu horeysay iyo tii ugu dambeysay. project haddii aad aragtaan lagu bilaabo airdrop baa la siinaya. waqti xaadirka airdrop la siin lama joogo. intaasoo kun oo token baa la soo shaacinaya maalin walba. uma baahnid inaad airdrop samaysid. haddii token-kaagu fiican yahay soo bandhig. community fiican samee, social media u samee. uma baahnid wax kale. airdrop u samee markii koobaad ka bacdina xadarnaysa Telegram-kooda ka soo qayb gala dad ku soo casuumsaad u heshid riwan bro waxa wal laga tagay airdrop oo loo baahan waqti xaadirkan la soo dhigay. community addiisa xataa yeesan noqon dad Afrikaan dad Asian waan dad European noqda. marka X Empire waxaan leeyahay family hantiyada maadaama airdrop ku heshay chartiga markaan fiiriyo xataa saraayu kacay hoos ay soo daatay. dadka ku jira community maahan ku haboon dad wax maal gashanay. dad ku haboon maahan in project aaminaan oo mataqaana ay hayaan token-kan si uu noqdo mid mustaqbal leh. laakiin walba lacagtiisu ka saaray maadaama uu airdrop hadduu ku bilaabo shaygan wali waqti xaadirkan token wanaagsan maahan. adigana waxaan rajaynaya inuu ku caawin karisay waxaan hadda sheegay. project-ga saddexaad aan rabo in isla eeg maanta waxa weyn Fetch AI. waqti xaadirkan waxaan joognaa waqtigii AI-ga waqtigii AI xataa loo sameeyay agency ahaan la dhisay loo sameeyay shirkadaha AI. Fetch AI waxay gashaa meelo fara badan. waxay caawinaysaa logistic-ka, waxay caawinaysaa data analysis-ka, waxay caawinaysaa caafimaadka, waxay caawinaysaa finance-ga. waxyaalo fara badan bay ku jirtaa Fetch AI. haddii ay noqoto koriin iyo haddii ay noqoto dhibaatooyinka ay xalinayso Fetch AI mar walba caadi maaha. waqti kasi dambeysana runtii aad ay u sii korisay. Fetch AI waqti xaadirkan waxay taagan tahay price ahaan $1.30. market cap-keedu waxa weyn 3 bilyan. volume ku dhex qulqulaa 24 saacadood ugu dambeeyay waxa weyn 484. maximal supply ay leedahay intaaba suuqa ay ku jirtaa 2.7. all time high goal ayay gaadhay waxay gaadhay March 2024
سيد بلوتكور وقت عادر كنا waxay hoos uga dhacsan tahay 62% haddaba waxaan tagi doonaa analyze-ka haddaynu nimaadno weekly-ga waxaynu arkanaa markii ay samaysay all time high-ga ee mataqaana sare u dhaqaaqday sidan xawliga ay u dhaqaaqday ba waxay samaysay dhammaan waxay soo buuxisay buyerski farax badnaa ee mataqaana halkan laga wada galay iyadoo mataqaana soo buuxinaysa si ay haddana sare u dhaqaaqi karayso haddaba waxaan arkanaa suuqan inuu yahay mid sare u socda waa markii koobaad inaan xaqiijino meesha u socdo markaynu nimaadno 1 hour-ka waxaan doonaynaa inaan halkan aynu focus ka saarno oo aynu eegno maxaa halkan ka dhacaya waxaan rabaa inaan halkan color iska bedelo oo ka dhigo cadaan aan arkin kabacdi waxaanu eegi doonaa halkan maxaa ka dhacaya waxaan arkanaa sidii aynu soo eegno oo kale waxaan arkanaa halkan lower high inay ahayd lower high lower low kabacdi oo halkan weli ka hadda uusan dhamayn u sameeynin move aad u weyn waxaan eegi doonaa haddaba in halkan la jabiyo kabacdina lagu soo laabto lagu soo laabto kabacdina sare loo dhaqaaqo waa sida mataqaana aad ku qurux badan haddii ay samayso in uu halkan taagan yahay laftarkeeda in uu ka dhaqaaqo oo mataqaana si xawli u dhaqaaqo waayo waxaan joognaa suuqa cryptocurrency ma joogna suuqa qiiqil wax walba waynu ka filan karnaa price-keedu meel aad cajiib ayuu taagan yahay all time high-gana hoos aad ayuu uga soo dhacay waxay jiray dad fara badan oo jawaabo aad u macquul ah kaga soo jawaabay su'aashii aan idin weydiiyay aad ku guuleysanaysan $50 jawaabo aad u qurux badan baa ku jiray waxaan runtii u yar baahanahay waqti si aan u kala shaandheeyo jawaabta ugu habboon aan isleeyahay waa saxsan tahay videogan intan ayaan kusoo gabagabeynayaa haddii uu jiro coin ama meme coin ama token aynu isla wada analyze garan karno fadlan iyadana hoos igula wadaag